munaasabad ballaaran oo si heersare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalin jabinayeen 80 arday oo xirfado kala duwan ka bartay xarunta shaqada ee Boorama Youth Job Center ayaa maanta lagu qabtay hotel Rays ee magaalada Boorama. Xafladda qalin jabintan oo ay ka soo qayb galeen waalidiinta ardayda, mas'uuliyiin iyo marti sharaf aad u tiro badan ayaa ugu horreyn wax faahfaahin ka bixiyay maamulaha xarunta Boorama Youth Job Center Mudan Ismaaciil Aadan Meecaad. walaalayaal ilaahay mahadi subhanahu wa ta'ala mar saddexaadkii noo suurtageliyay inaynu goobjoog ka ahaano dufcadii saddexaad ee dhameysatay xirfadaha farsamada gacanta ee kala duwan ee xarunta shaqada ee Boorama ay bixisay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxa aad barateen inuu dhammaantiin idinku anfaco. walaalayaal waxa xaruntan la furay qiyaastii 2 sano iyo bar muddo hadda laga joogo. dufcadii saddexaad oo 300 oo qof iyo waliba saayid ay isku noqonayso inta xirfadaha kala duwan ee farsamada haddaad maqashaan waa waxyaabo aanan dad aad u fara badan hal mar wada geli karin oo lagu shaqaysan karo oo ka mid tahay sidee solarka loo sameyn karaa, sidee farshaxan waxa la sameeyay la iibin karo loo sameyn karaa, hadii dhaqanka ay qayb ka mid noqon karto, macmacaanka sidee loo sameyn karaa. waxa hore loo qaatay dawaarkii, waxa hore loo qaatay yadna xirfado ilaa iyo 10 xirfadood oo kala duwan ah oo alxamdulillah dadkii ku shaqaystay qaar ka mid oo badan had arkayso iyagoo maanta yani dadkii bartay qaar ka mid ah arkayso ayagoo ku shaqaysanaya. walaalayaal ujeedaduna taas ay ahayd intaasi waa inta xirfadda farsamada gacanta baratay. waxaa dheer dhalinyar kale oo aad u fara badan oo tiradoodu 500 ay kor u dhaafayso oo iyaguna qaatay tababaro la xiriira sidii ama uu shaqo u raadsan lahaa waxa loo yaqaan job hunting skills ama uu shaqo u abuuran lahaa. laba tababaro kala duwan oo dadka qaatay tiradooda inta kor u dhaafayso. waxyaabaha la yaabayso waxa ka mid ah xaqiiqo jirtana ama qofku jaamacada ka soo baxo ama yaanu ka soo bixin. waxyaabo waxaad moodaa baahi guud oo jirta oo ka mid tahay sideen u diyaariyaa CV-gayga, yani meelo kala duwan kaliya annaga maahan, meelo kala duwan waad arkaysaa qofka isagoo jaamacada ka soo baxay caawimaad u baahan yahay. ceebna maaha hadduu caawimaadii soo raadsadana uu helayo. intaa waxaa dheer walaalayaal tiro ilaa 3,000 oo qof ku dhow oo iyaguna ka faa'iideystay khadamaadka kale ee xaruntu bixiso oo ay ka mid tahay yani waa meesha dhalinyartu maanta haddii uu wax ku saabsan shaqo raadis أو هلو أو إيمانيو عدي فورم كلا عاون لهيد عدي حقت شقوينك تربا لو داقي لهيد هدي وشقة صور كان قاب كود البل لهيد كعاون لهيد بدن كقف كصاحب كايا أما قف كقرابة دايا أما مالك الشقيون بدرادين جرتين هذا ويديسو لكن ده شقالو أنت أو دياري قبت كوتشوك تاينا تقبت شقة بورما الحمد لله لا صدق كونه قف ده كده وأنت ليس كوتشر تاينا أي تهدد كي خدمات كلا قاتين أنت وحكودر حفلة ده كلا برنامج كلا ودرينر توعي قلين oo iyadu usbuuc kasta si joogta inta badan usbuuc si joogta u dhici jirtay koob bilayaal ah oo dhiirigelinta iyo tusaaleynta iyo hagida dhalinyarta ee qayb weyn ayada lafteedu ka qaadanaysay. kulay khadamaadka oo xaruntu qabanaysay muddada ay soo jirtay way fara badan tahay. si kastaba ha ahaatee ardayda ka qalin jabisay xarunta Boorama Youth Job Center ayaa waxay barteen xirfado kala duwan sida uu sharaxay Ilyas oo ka mid ah mas'uuliyiinta xarunta Boorama Youth Job Center. waxaan maanta u wada joognaa inaan la farxad la qaadano, waqti fiican la qaadano, aan sugootino dhalinyarta dufcadda saddexaad ka dhameynaysa Boorama Youth Job Center. dhalinyarta kala duwan waxay kala barteen xirfado kala duwan oo xirfadaha gacanta. waxa ka mid ah solar installation, waxa kaloo ka mid ah video production. xirfadaas oo ahayd inay dhalinyar lagu traineysay fiidiyoyada u duubi lahaayeen oo edit lahaayeen oo qurxin lahaayeen. waxa iyadna ka mid ahayd bakery and sweets, xirfada loo yaqaano ama macmacaanka sida keega loo sameeyo biskutada iyo waxa iyaduna sidoo kale ka mid ahayd xirfadaha ay dhalinyarta maanta qalin jabin ay dhameysteen xirfada loo yaqaano handcraft oo ah xirfad dumar bay u badnayd la baray sida loo sameeyo alaabooyinka dhaqanka gacanta laga tolayo. afarta xirfadood dhalinyaro ka kooban maanta insha Allah qalin jabin doonta hadii la yiraahdo. sidoo kale waxaa qalin jabinta xafladan ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay. dhalinyarada quruxda badan leh ee ka qalin jabisay xirfadaha kala duwan
ee aad ka dhifiya naadirka uga guud ahaan geyga Soomaalida ama Somaliland waxaan leenahay hambalyo Allah idinku anfaco cilmiga aad barateen xarunta Boorama Job Center ee uu hormoodka u yahay Xaaji Ismaaciil Aadan Micaad waxaan leenahay waxa idin keentay wax ku dayasho mudan xirfadda gacanta waxay ka mid tahay waxyaabaha aad iyo aad ka wadankeenu ugu baahan yahay xirfadan muddo soo barnay 6 bilood oo ayna soo siiyeen walaalaheena sida fiican ugu adeegaya bulshada ee Job Center waxaan u mahad celinayaa oon aad iyo aad u bogaadinayaa walaalkeen Ismaaciil juhdiga iyo dadaalka uu ku bixiyay kobcinta aqoonta dhalinyarada dalka u soo kacaysa dadkii waxna soo baray iyagoon lacag naga qaadin iyagoon maxay haydan wax dakhliyo annako aan ku bixinay meesha aan jirin inta iyagu is howleen maxay budget iyo kharash ku baxay naga bixiyay xataa agabkii aan wax ku baranaynin siiyay maantana noogu daray inay shahaado na siiyaan qalin jabinteeda xaflad noogu qabtaan hotelkan magaalada ka caanka ah ee Rays marka dhalinyartana saasan u bogoodinaya meeshana aan wax ka baranay iyo macallimiinteeda maamulaha iyaga Ismaaciilna saasan ugu hambalyeynaya alxamdulillah waxaan u mahad celinayaa maamulka Job Center macallinkayga qiimaha iyo qaayaha leh ee goobta ku sugan isagoo aan ka baxay anigu maanta video production iyo asxaabteeda kale iyo iskilisyada kale ee Job Center ay bixiso waxaan maanta farxad gooniya ay tahay inaan ku sugnaado goobtan farxad weyn lagu wada qaadanayo marti sharafta isku soo wada duuduuba xarunta Boorama Job Center ayaa noqonaysa xarunta ugu ballaaran gobolka Awdal ee waqtigan dhalinyaradu ka bartaan xirfado kala duwan oo ay ku shaqo tagaan